بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. جيكو تاريخ ده 6 بالأبريل لما دكم يتمي 6 وي أمد الصوماليات جارهان قومي الدقل المرفله أسيب تاي غيره نحذن له إيدي محنون بدن تاسو usika geeriyoodi wadanka Jarmalka haliyeygi qoomiyada digil mirfle ahaan hogaamiyihii digil mirfle mudane Xasan Maxamed Nuur Shaati Gaduud marxuum kaas waylana ilaahay naxariisti jannaat si qoomiyada digil mirfle ummadda Soomaaliyeedna samir ilaahay ku sii gaar ahaan eheladii usaha ku jeedi iyo awlaadii ee xaasaskii usu ku tabena ilaahay samir ku sii madii in yar ana ku taariikheeyo haliyeygaas marxuum Xasan Maxamed Nuur Shaati Gaduud way haayeen haliyey qowmiyadan digil mirafle magawiin kalahay oo runtiina hindho haka furadeen ururkii araare oo qowmiyadan digil mirafle ku qaadi iyo ciidankii araare bahay haraadigi wadankan haysaday ku qaadi halgankii dheeraay oo la ogaay haliyeygi hogaamiyay ahay ilaa haatan inteeganay anfaaska daqiiqadooyinka inka dambooyeen in uu qowmiyadan digil mirafle meel deersi walno jeelada ilaahay no jeelada تعسيدي سنة ندرسي رنتي تعسي إيضا حوق بدن يا جيك قومية دقل مرفلان تعالى إيه أمد الصوماليات با ميلنا إلهي سمر إيو إيمان نوسي خيس شيني إلهي منفذنا انتي أمدان والانترين اندعيتوي انتي والكشيك داسونا عفيدوي هليي قومية ده هاي انتكر أمدان أما والانترتين haddii iyo dhimadaan sidii isu ku fayla leemarne umadun ma ay tus in sheegas marka way ka gabagabeeyay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un tan kala golaha go'aanada koonfurta Soomaaliya ano codsho ka hadalo kadib markii uu wada tashi suubini iyadoo mowqifkan hata jaroona tacsiid ku faa'iideysana way ha bandhikaane qowmiyada digil mirflan am bandhikaane in fikir hal abuur sheelahay golaha aqoonyahanada qaar kumid ah in iyo ka bandhikeen iyadoo ku faa'iideysado tacsiidan in garoonka diyaarado caalamiga magaalada Baydhabo lanka magadara haliyeygaas qowmiyada digil mirfle Olambiya garoonka caalamiga ee Shaati Gaduud airport leero ya maaragna isla kasne way fadaane qowmiyada digil mirflan intani la qaadato wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.